waxaan kuu sheegi doonaa 5 arrimood oo aad caadaysatay oo aad mar waliba samaysid kuwaasoo dila ama burburiya awoodda maskaxdaada isla markaasna hoos u dhiga garaadka iyo xasuusta maskaxda. haddaba inta aan u gudagelin 5taas arrimood waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso walaalaha kuugu xiran si ugu faa'iidaystaan. sidoo kale page-ka follow dheh si kuu soo gaaraan talooyinka caafimaad oo aan maalin walba halkan soo gelin. sidoo kale xagga hoose ka wac qaar ka mid ah asxaabta oo aad is leedahay 5tan qodob way anfici doontaa. mahadsan. haddaba haddii aad 5tan caado si joogto ah u samayso waxay burburin doonaan ama ay dili doonaan caafimaadka maskaxdaada isla markaasna waxay hoos u dhigi doonaan garaadka iyo xasuustaada. haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeyo soo jeedka samaleelka ama dhafarka badan waxay dilaan ama way burburiyaan caafimaadka maskaxda. si gaar ah waxay hoos u dhigaan garaadka iyo xasuusta qofka. qodobka labaad isticmaalka muqaadaraadka sida shiishada, sigaarka, qaadka iyo guud ahaan waxyaabaha la xiriiro muqaadaraadka waxay dhaawacaan ama way burburiyaan caafimaadka maskaxdaada isla markaasna waxay hoos u dhigaan garaadka iyo xasuusta qofka. qodobka saddexaad stresska, walwalka, diiqada iyo niyadjabka waxay hoos u dhigaan garaadka qofka iyo xusuusta. sidoo kale waxay yareeyaan maskaxda qaybta u qaabilsan ogaalka iyo waxbarashada. qodobka afaraad fadhiga badan ama socodka yar iyo cunista cuntooyinka aan caafimaadka lahayn amaba isku dheelitirnayn waxay hoos u dhigaan caafimaadka maskaxda. haddii aan u gudagalo qodobka 5aad oo ah qodobka aan kusoo gabagabeyn doono kalinoodaashaha iyo inaad caado ka dhigato in aad ka dhexbaxdo bulshada asxaabtaada amaba xubnaha qoyska oo aad caado ka dhigato inaad kali noolaato. taas waxay keenaysaa stresska, walwalka iyo niyadjabka kuwaasoo dhaabici kara ama burburin kara caafimaadka maskaxdaada oo waxay ugu dambeyn keentaa inay hoos u dhacaan garaadka iyo caafimaadka maskaxdaada. fadlan haddii aad leedahay qaar ka mid ah caadooyinka aan soo sheegay waxaan kugula talin lahaa in aad isbeddel degdeg ah samaysid si aad sare ugu qaadid caafimaadka maskaxdaada. caafimaadka waa shayga ugu muhiimsan oo ibni'aadanka uu haysto. adigaan i daawanayo aan su'aal ku weydiiye 5tan caado aan soo sheegay ma leedahay qaar ka mid ah caadooyinka aan soo sheegay? haddii aad leedahay ma rajaynaysaa inaad isbeddel aad samaysid? fadlan wixii ra'yigaaga waxay ku reebaysaa qaybta faallada ama qaybta commentiga. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan haylowin inaad muuqaalka share garayso oo aad gaarsiiso walaalaha kuugu xiran si ugu faa'iidaystaan. sidoo kale xagga hoose ka bax qaar ka mid ah asxaabta aad la jeceshahay in muuqaalkan ay ka faa'iidaystaan.